ardaydii gashay imtixaanaadka dawladda ee dugsiga sare ayaa maanta waxa ay ka banaan baxeen go'aankii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ee ku joojisay imtixaanaadkii ay galeen. Faafayn arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Zainab Maxamed Aadan. iyadoo saakay inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ay ku waabariisatay isku soo bax ay sameeyeen ardayda galayay imtixaanaadka dugsiga sare ee qaadaysay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen isku soo baxooda in uu ku saleysan yahay hadal wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya uu xalay ka dhawaajiyay oo ahayd in ardayda ay ku laabanayaan imtixaanaadka. qaar ka mid ah ardayda oo la hadlay TV-ga Somali Cable ayaa waxa ay shaaciyeen in aysan marnaba ogolaan doonin in imtixaanka ay dib ugu laabtaan ayna ka xun yihiin hadalka wasiirka. aniga ku hadlay afka ardayda Soomaaliyeed magaceeduna Ciise Ali Cumar wasiirka waxbarashada waxa ku dhaleecinaya asigoo inta soo sanaa waxbarashada naga soo dhiibin ee dawladda waxbarashada siinin anagoo 3 maalin anagoo sooman oo dhafar indheen oo ka muuqdo oo inta soo maalmeed oo rafaadeenay oo nala baaray oo boor ku socon oo ina isgoos ku degin isgoos kale ka sii luweyneenay oo meesha dad tagnana nala sii carqaladeynay oo 9 saac oo ka soo bixin imtixaanka sidoo noogu dhaha anaga inoo dhaay imtixaanka ku soo noqdo taada kala asigoo wasiirka waxbarashada sababta oo asigoo ardaydiis inta soo kun oo arday ay tahay sidoo ku aadaa shir looga hadlay urur madaxweyne qaladka oo gal waa qaladkaas qaladka kale oo gal waxay tahay asigoo imaaday anaga dawladdeena u tagnay ina banaan baxnay ma ka soo qaadan imtixaanka sidoo uu soo galay imtixaanka ina tagnay anagoo banaan baxayna ma soo qaadan sidoo noogu dhaha hay'ad ardayda waa inay ku soo celisaa imtixaanka wasiirka mid kale oo dhaleeceen kale way jirtaa wasiirka markii uu maaday waalidiintana wuu carqaladeeyay wuuna afgalagaadiyay dawladda Soomaaliyeed waxa ku xusanaynaa inay xaqeena soo dhicso 12 sano hooyaday yaayo leeyahay markay bil kisto $17 oo iskuulka rafaada ku dhiibtaa marka aniga oo dadaalka ma gaaray in hor istaago xaq miya xukuumadda xasad qeere anagana in la xaqeeno ku tunto anaga arday Soomaaliyeed oo maanta u soo baxnay inay imtixaan galno oo haddana anaga sooman meesha la inaan nasano inay yiraahdaan maanta ma galeysaan oo ma waxba soconay ma lahan qashba dhiib waraada dhiibtay oo dadka ayaa dhiibay midda kale waxa ku sheegayna anaga arday Soomaaliyeed imtixaankaaga marabno waxaan meeshan ka sheegayaa in cadaalad daran uu la sameeyay cadaalad daradaas oo ah waxa galnay 6 maado 6daas maado waa la kansalaa Allah waalidiinta waxa ka baxay baawraac waa bil Ramadaan wax lagu jiro bil Ramadaan lagu jira waxaan la sameeynaa gaari raac waxa naga soo baxay waxa la dhahay wixiina kansal waay ma soconayso saaki ilaa haddana qof wala tashtay inay jin waa u maleena sababtoo ah meel isku soo istaagay wuxuu ka imaaday safar imraaki imaado sheegay imtixaan kansal waay u dhahay saaka banaan bax asmeynana ilaa hadda xabadaan ula wada dhiidka naga muuqda u jeedaan soo rafaasanaanay xabadan waan ula wada habeen imaan oo u dhafrin imtixaankan 6 maad see loo kansala marka ma soconayso imtixaanka wasaaradda lacag lagu siiyaa dawladda lacag ku siiso nin wasaarad ka shaqeey si ugu dhiibin jaamacada qabiilnimada iyo adduunnimada oo wada asaaka wada dawladdu waxay dishay 2 arday xageena jifaan waxaan rabnaa xuquuqda in la soo gudo goodax bar waa ka cambaareyna dooni mayno imtixaan gali mayno imtixaan waxaan arday Soomaaliyeed arday shay oo kale ayaan lagu dhaqmaa xabada ayaan lagu soo furay halkaas anigoo taagana la soo xabareeyay arday Soomaaliyeed anagoo xaq uma lihin